odayaasha waxgaradka deegaanka dhalaamo cunay gobolka Cayn ayaa waxa ay ka hadleen maxkamadda Korneyl Yuusuf Cabdi Cali Korneyl Tuke oo kamid ah saraakiishii dawladda dhexe ee Maxamed Siyaad Barre. odayaasha ayaa sheegay in Korneyl Tuke uusan wax haba yaraatee xasuuqa uusan cidnaba u geysan, waxaana beesha Sacad Muuse ay ugu baaqeen oo iyagu markaasi maxkamadan daba wada Korneyl Tuke horena dhowr jeer hore ugu waayay, waxa ay ugu baaqeen inay joojiyaan dhibaatadaasi ay daba wadaan Korneyl Yuusuf Cabdi Cali Korneyl Tuke. halkani waa dhalaamo cune, waxaanu halkan ummadaha adduunka u sheegaynaa oo u soo gudbinaynaa dacwo ka dhana maamulka Soomaaliland iyo shacabkeeda, iyadoo Soomaaliland u taagan tahay in wax lagu yeeleeyo beesha dhulbahante midabta koor iyo maxaan ku leeyahay wax la yiraahdo qabiileysi. maamulku wuxuu abuuran yahay in lagu kala qaybiyo ummadaas si adduunka markaa waxaan u sheegaynaa bariyahan dambe warbaahintu waxay wadaa been abuur aan sal iyo raad lahayn lagu kala dilayo ummadda Soomaaliyeed. annagoo ah beesha dhulbahante waxaanu dacwo Soomaaliland ka dhana u gudbinaynaa adduunka si aanku ayaamahan wuxuu baahinayay warar ku tiri kuteena isku dir Yuusuf Cabdi Cali oo ahaa Korneyl dawladda Siyaad Barre ah oo wax dambi aan lahayn oo aan xafiis baa waxa la leeyahay waxaad gumaaday intaas oo qof wax ka jira male oo Jibriil Abakorna maamulka Soomaaliland waa kii shalay kalshaan lagu dilay, waa kii uu nagu dilay, waa kii odayadii naga cunay, hadeerna annaga inuu cuno buu abuuran yahay dee adduunku taa inuu sadbiile ahayn inuu dawladda Siyaad Barre raga ugu sharafta badan kiiska lala doonayna wax shaqo uu ku leeyahay ma jirto. Jibriil Abakorna waa nimankii nagu xasuuqay magaalada Kalshaale, magaalada Woodwood, tirada ay daga laayeen hadeer tadana soo bandhigay 200 oo nin kama yara iyaga inay ka badneen mooyaane waxayna ku wada noolay waddankeena ku wada noolay naga Jibriil Abakor. waxaan dad weynaha adduunka u sheegaynaa ninkaas si sadbiile ahayn oo si aan kala beegsanay wuxuu san gelin, waxaanu caalamka ka codsanaynaa arinta wax ka jira ma jiraan. Yuusuf Cabdi Cali wax la daba wadaa inuu waxba ka jirin, wax allaale wax ka jira ma jiraan, waa barabagaan. waxaa kale oo jirta Jibriil Abakor waxaan uu daba wado ninka kan uu daba wado ee waxba lagaga waayay. dadku waa wada joogaa meel walba waa la joogaa. berri baa la arki doonaa iyaga oo gudaha meesha uu Yuusuf Cabdi Cali ku dhashay ay joogaan. ha ka baxeen waxa ha ka baxeen ay daba wadaan waa barabagaande waxba kama jiraan. adduun weynuhu ha ogaado adduun weynuhu. Sakariya Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Somali News, Woodwood.